السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada barkulkeen Cabdulla Mansuuri waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin beenad wacnaan iyo wanaag aad ku sugantiin. Waxa insha Allah maanta muuqaalkan aan ku falaqayn doonaa ama aynu runtii ku dardaadin doonaa buug runtii aad u qiimo badan leh oo loo yaqaano kitaab al-manhaj alladhi la yudras. Yani manhajka aan la dhigan. buugdan waxa qortay Dr. Khawla Fuad oo ah gabadh u dhalatay dalka Bahrain oo runtii cilmiga caafimaadka aad ugu xeel dheer gaar ahaan cilmi nafsiga cisbitaalo kala duwan oo dunida ana runtii ka soo shaqeysay 2022 ayay buugdan soo saartay aad u qiimaha badan leh ee loo yaqaan al-manhaj alladhi la yudras yani manhajka aan la dhigan buugdan runtii waxay in badan kaga faaloonaysaa oo wax badan ay ku falaqaynaysaa manaahij muhiim u ah nolosheena qofkana ay muhiim u tahay inuu barto laakiin aan dugsiyada iyo goobaha waxbarasho ah lagu dhigan oo leedahay yani aqoonta aynu goobaha waxbarasho ku dhigano waxa ka muhiimsan aqoonta marka qofka uu baahan yahay ee qofku marka inuu helo ama shakhsiyadiisu inay hesho runtii marka looga baahaye wana qodobada ay runtii ku falaqaynayso marka buugan ay ku falaqaynayso ay wada dhigana buuga iyo waxyaabaha ay ku falaqaynayso wada socod wanaagsan Dr. Khawla buugeeda waxay ku bilaabaysaa oo ay tiri manahijta maanta aynu dhigano waxyaabo badan oo kala duwan ay ku dhiganaa يعني ساينس بان كودغانا حسابات بان كودغانا waxaan ku dhiganaa yani doodo iyo aragtiyo ku dhiganaa laakiin waxa soo waxa jira waxyaabo badan oo ka muhiimsan bay leedahay waxyaabaha ka muhiimsan waxa ku leedahay waxa weeyaan yani inaga oo ayna shakhsiyadeena la dhisin oo qofnimadeena la dhisin oo waxa aynaan leynoo sheegin oo inaga yani sida aynu nolosha aynu la faldeli lahay ayna layna barin ayaa aqoon iyo macluumaad layna siinaya صدرت waxay leedahay aqoonta maanta jirta ama dugsiyada waxyaabaha lagu dhigo waxa weeyaan i'daa'u al-macluumaat weeyaan macluumaat iyo xoro oo kaliya ayaa la siinayaa laakiin la bitagayir yani nufus yani nafaheena iyo shakhsiyadeena waxba laga bedeli maayo waxa leedahay waxyaabaha in la noolahay waxa kamid ah ee maanta yani caalamka iyo dhalinyartu ay aad ula nooliyeen waxa kamid ah qalaq joogto ah warwar iyo walbahaar joogto ah bay la nooliyeen mustaqbalkooda ay in badan ka fikirayaan oo ka baqanayaan cadawyo badan oo noloshooda ku hareeraysan bay diran lahayn sida u waajahaan يعني نولشود هدي قرار أي قطعان قرار كيف فلتر مايان قرشيال يا أجنديال بمالو والبلد الجسنية لكن هرجلي مايان يعني واحد نوها رئيسان دمانتهم بالدائرة أي كل حجرنا دائرة ده أصلا مركب قف كأن يعني أول والله هين أما يعني أقانتي يا حرفدي يا وعي ودبد وربح لها يعني سيرت الك أو كل حجره أن مركب أن والله هين وأنا وقضبضة أي كشيء كان سائلة هاي وقضبضة مهم كأه قف إنه مركب يشوا لو بهاي صدرت qodobadaas tolo maxay ay leedahay Dr. Khawla waxay leedahay si hadaba aynu uga hortagnay dhibaatooyinka badan ee maanta dhaliirteena haysta waxa muhiim ah in qodobadan soo socda aynu yeelano isla markaana aynu markaa baraad u yeelano ama wacyi aynu yeelano isla markaana goobaheena waxbarasheed iyo manaahijteena in lagu daro ay aad iyo aad runtii ay muhiim tahay waxay tiri qodobka ugu koobaad maraaxil bay u qaybinaysaa laba marxaladood bay u qaybinaysaa al-marhala al-ula wal-marhala ath-thaniya marxaladda koobaad waxay ku soo qaadanaysaa laba marxaladood oo min laba qodoba marxaladda koobaad marxaladiisa yani kasi koobaad ama yani qaybta koobaad ee marxaladda koobaad waxay ku magacaabaysaa al-marhala al-manhajiyya soo kale waxay qaybta labaad ay ku magacaabaysaa al-marhala at-ta'siisiyya oo min laba qodob ay ku soo qaadanayso iyo xagga u dambaysa oo marka marxaladda labaad ah oo marka iyagana ay afar qodob muhiim ah ku soo qaadanayso marxaladda marka manhajiga waxay leedahay qofka waxa muhiim ah inuu marka qodobka koobaadna noqonaya inuu wacyi yeesho oo baraad yeesho وعيدا maaha kii aynu naqaan ah inuu qofku waaqican iyo caalamka waxa jira uu la socdo maaha laakiin waxa weeyaan waaqica yani wacyiga ay ka sheekeynaysaa ama ay leedahay waxa weeyaan waa inuu wacyi u yeeshaa dhibaatooyinkan maanta uu la kulmayo ee bari uu la kulmayo ee uu shalay la soo kulmay inay wax jira oo dunyada ka jira ay yihiin waa kow waa laba ee in aanay ilaa uu ka gudbo dhibaatooyinkaas iyo caqabadaha uu ka gudbo ay noloshiisa horumar gaari karin يعني وينو آمنا وحن إني وح جريهين إسلام مركانا وآمنا إنه يسوي كل جد بكرة يدي باتوين كده إسلام مركانا آنو هنشمين أو مركا وسيدي ورسوا علىها يوعي دي ورسوا علىها مركا وياش وحيابها أولوا وين مركا يعني كانوا حكم ذا أفرضوا الثقائية تلسوني يعني وسكو قبوا وحلايا بين واحد بدن كدبوا وحلايا بالله بقف وسكو مذا أيا وحنا وقفنا وعي يعني تلسوني مركا وحقول لي هاي إنه الشيء اللي كدب بكرة qofna wax laga yaabaa inuu waxan ka baqanayo ama wacyiga iyo yani baraadka uu ka qaba ay tahay waxan yani shakhsiyadaha inaanu ka gudbi kareynba labada qof waxa ku kala duwan marka aragtida ay ka haystaan shaygan ayaa marka kala duwan marka waxa ku leedahay qodobka koowaad waa maxay waa wacyiga shakhsiyadeed inuu qofku ku dadaalo oo marka wacyigiisa uu dhiso caalamkana waxyaabaha dhibaatooyinka ka jira oo dhanna oo marka yani qof yani ka warqaba oo marka uu noqdo qodobka labaad ee soo qaadanaysa waxa weeyaan marka ay ka sheekeynayso yani al-qiima adh-dhaatiyya qofku inuu shakhsiyadiisa dhiso
shakhsiyadiisa qofku soo dhisaya waxa ku leedahay qofku waa inuu gartaa yani xadeen taaganahay qof ma ayaanahay yani shakhsiyadeedu waa maxay maxaa aan diidanahay maxaa aan jecelahay maxaa aniga horumar iyo yani meelo waaweyn yani gaarsiin karaya maxaa noloshayda hoos u dhigi karaya maxaa aan awood u leeyahay se maxaanan awood u lahayn maxaa aan ku fiicnaysa maxaa aan yaanan ku fiicnayn qofku markaa inuu garto yani shakhsiyadiisa inuu wax badan ka ogaado oo shakhsiyadiisa wax badan uu garto ayaa runtii aad u muhiima waxaa jira xirfado kala duwan oo maqaabab kala duwan iyo wadooyin kala duwan oo loo maro oo qofku uu u mari karayo si markaa shakhsiyadiisa u garto tijaabooyin baa jira qofka laga qaado oo marka xataa lagu ogaan karayo yani fiilka iyo waxyaabaha markaa uu jecel yahay lagu ogaan karayo marka waxay ku leedahay ama ay buugeeda ay in badan kaga faalloonaysa qofku inuu shakhsiyadiisa in badan uu garto oo shakhsiyadiisa aad ugu kalsoonaado oo markaa isaga uu isbarto ayaa in badan ka muhiimsan inuu wax badan markaa qabto waxa ku leeyahay hadduu isagu qofku is yaqaano waxa uu garan karaya waxaana ku fiicanay waxa mise kuma fiicni wixii markaa isaga ku fiicnaaba markaa ay qabanayaan waxay markaa qodob fiican ay kaga faalloonaysaa markaa halka qodobka ay marayso oo ay leedahay maxaa yani ay u dhacdaa waxyaabaha aynu jecelnahay inaynu markaa qaba weyno waxa jira wax aynu jecelnahay iyo wax aynu ku fiicanay baa jira maxaa waxa aynu ku yani aynu jecelnahay u qaba weynaa oo wax aynaan jeclayn ama aynu qasab noloshu inaga dhigta aynu qabanaa waxay leedahay yani waxa dadku inta ugu badan waxay qabtaan wax aanay jeclayn bay ka shaqeeyaan ama ay qabtaan ama ay yani ku hawleeyeen laakiin wixii ay yani markaa ay jeclaayeen ma qabanayaan sababtoo ah way ka baqanayaan ay ku leedahay يعني بقاشو iyo wacyi darro haysata iyo shakhsiyadooda aanay daranayn ayaa keentay in wadooda iyo juhdooda iyo fikirkooda oo dhan ay ku bixiyaan wax aan markaa ayira aan wanaagsaneyn wax aan ayira markaa wixii ay ku fiicnaayeen hadhowna resulti iyo natiijo fiican aanay markaa aanay ka keenin marka waxay leedahay yani waxa muhiim ah in badan marka aynu isdarano waxaanu daran karnaa waxaan ku fiicnay kadib waxaan ku fiicnay marka aynu ka shaqeysannaa marka waxay leedahay yani haddii qofku isbarto wixii uu wanaagsanaa ama isaga ku wanaagsanaa ayuu ka shaqeynayaa kadibna marka noloshan iyo adduunyadan waxa uu ku soo turinayaa wax aad u qurux badan ku soo turinaya laana wixii uu jecelaa ayuu ka shaqeynayaa qodobka saddexaad soo qaadaysa waxa weeyaan marka marxaladii marka ta'siisiga marka la galaya ah laba qolo ayay marka qofku uu la kulmaya mid waxa weeyaan maraaxishan uu marayo inuu marka wacyi u yeesho iyo qof markaa in yani bulshada uu la noolaanayo iyo basharka uu la noolaanayo labadaba uu aragti ka qaato mid waxa koobaad weeyaane yani maraaxil bin marana warwar bay marana walbahaar bay marana kufitaan bay marana fashil bay marana intaaba qofku inuu wax ka barto ayaa muhiim ah ay leedahay laakiin inuu u jabo ma aha يعني قفكنا وإنه آمنا إنه دباتوين كان واحد شراء أيهين إسلام كان لابد أي تاي إنه قفك مريو وعلى هذا دباتوين كان مرتا قفك ومري أمام مضبات الحياة أمام مضبات المراحل ومري قفك وإنه مركا سد ورد بالها وفلو ريد وكود ده لكن أنا الركود عين يعني هو فشل مي واحد هذا فشلكم معها قفك إنه أنتم فشلموا يعني فشلكم معها قفك مركا وفشلموا لكن فشلك وحويا ما فشل الحقيقي وحويا قفك إنه رالك كسين نقضه إنه هالك فشل مي وباقي كسي هذا أيام مكان يا فشل كعادي الله يقارن سادر هذا حلا هذا هي يعني نورش دباتون كأيلتهم من يا مراحش كدون إنه مرة نورشة وإنه الميد والبا إنه كد بدنا ونستود الناس إنه رد بالهين إنسان يعد تستوين لك عشان كريننا أي لك عشان مركا يعني إنه رسم تبح الهين أما الطلاق يتصال إنه رود رسال الهين إنه وين نحلنا عد تستوين لحلي كرتنا مركا إن أطرنا المهم وحويا أن نعبر يعني إنه هالك كدودنا أي شيء ده نتيجته مهم كأ قدر كأفراد حلا هذا هي مضبات البشر بشر كأدوك إنه يقولون نول سين ومكا واجهنا قدر لما قدر بشيء سام مرة واضح حلا هذا هي هدي مدوح ونقد نقد الآخرين إن بدن بالغود على عين دونا لغود عليه دونا وحبد اللي جاء شيء دونا إن أدوس كل كلصونات أيا إن بدن آدم مهمة إن أدوس كل كلصونات أيا إن بدن مهمة يعني ضد كل واحد كاشيء يعني يعرفتيها كقبل مهمة قفتي وح وراسك كله وداعنا واصح قفتي وح قدن كله وداعنا يصير كعلي يصير آيات كعلي نساء مهمها إن يعني وح والبا يدباتون والبا يعني نقدر أبرشيد كوسو تشيسو النيجاتيف كأينا مركا نلوشنا يخوصوا بالتواليات مركا يعني إن بدن وحين لكل من حسدوا الفتاة إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء وخصوم وكذا مركا يعني ضد مركا دار ويان قفكة لما ضد هذا مركا عدو بأي نقدان أو سيدي أي هنتيسا أي حلقة الدنيا يخوصوا قصادق العين أي شق بدن يهول بدن أي دريا مركا وينان ينان أتشبين أي مركا آدو اللي هذا قلت لا ضحي هذا هاي الدباتوين كبدن إنه جيستا مهم أيتين نفعن كقادنا حويان dad badan ma isbar badhignaa yani qofku waxa laga yaabaa inuu inta ku hareerayso oo isbar badhido oo iraado halka loo socdo qofka iyo qofkaas uu xaq leh ama inta qof ay kooban ayaa uu xaq leh oo shakhsiyadiisa markaa uu xaqlo waxay leedahay markaa dadka oo dhan yani 4 saacadood bay haystaan qofka sana 9 bilood baa lagu dhalay
qof ka muhiimsan isla markaana uga muhiimsan ama xaq uga leh inuu halkaa uu gaaro ma jirto laakiin waxa lagu kala duwaya waxa weeyaan sidii wadadaas iyo jidka loo mar lahaa baa lagu kala duwaya marka waxay leedahay haddii jidka aad u ogolaatay inay kuwa kala maraan dee adaa raalli ku noqdayna halkaa baaqi ku sii ahaato laakiin haddii aad isku dayda inaad halkaa ay mareen aad marto waxa doonta aad ku martidee waa intii loo baahnaa bay leedahay marka waxay leedahay qofku inuu qof kale isbarbardhigo muhiim ah يعني isbarbardhiga wanaagsan waxa weeyaan qofka inaad isku barbardhigto yani maxaa aad kaga dayan kartaa يعني waxyaabuhu iyo tallaabooyinka mar maxaad kaga dayan kartaa yani qayb positive inaad markaa aad kaga dayato laakiin inaad kaga dayato negative oo markaa ah muxuu halka maxaa ana u gaari way oo markaa adigii naftaadi aad yani diiqad iyo cara aad ku abuurto oo hebelba uu gaari adna maxaa u gaari weydin oo naftaadi markaa aad cilkaambi aad ku samayso markaa wacta loo baahay taamaha bay leedahay oo dhibaatooyinka ugu badan ee dhalinyarta badan haysta kamid ah inuu qofku aaminaba in halka aanu gaari karin laba jeer baa laga duulaysanaya wuxuu aaminaya inuu meesha boostiisa aanu hayn kadibna markaa uu kaga tanaasuliyo marka afarta qodob ee muhiimka ee marxaladda koobaad ee kaga sheekeynayso ay markaa runtii ay soo qaadanaysaa marxaladda labaad ee markaa ay kaga sheekeynayso Dr. Khawla buudeeda waxa weeyaan oo marxaladda labaad ee aad u muhiimka waxaan ka soo sheekeynay qofku inuu wacyi yeesho waxaan soo ka soo sheekeynay qofku markaa inuu qiimo daatiye yeesho waxaan ka soo sheekeynay in madibaat almaraaxil maraaxisha qofku waxyaabuhu la kulmayo markaa runtii inuu wacyi u yeesho soo kale oo markaa uu ka gudbi karayo isku dayo inuu ka gudbo waxaan ka soo sheekeynay qofku bulshada iyo dadka uu la nool yahay habkii uu la noolaan lahaa oo laba qodob ah inuu markaa uu qofku qaato qodobka qaybta labaad ee u gudbisa waxa weeyaan markii qofku inta uu ka soo gudbay ee shakhsiyadiisa uu soo oraaday oo wax badan markaa uu runtii uu soo xaliyay inuu hadda u imaado sidoo isagu wax u qaban lahaa waxa leedahay markaa afar qodob ee marxaladda kaga sheekeynaysa marxaladda qodobkii hore ayuu xiriir la leeyahay waxa weeyaan ashaqaf يعني waxaad jeceshay inaad ka shaqeyso waxaad jeceshay inaad raadiso waxaad jeceshay markaa inaad in badan daba gasho oo markaa aad in badan aad markaa ku dadaasho markaad intaa soo hesho ama wixii aad jeceshay markaa markaad hesho aad qorato waxyaabaha aad ku wanaagsanto oo dhan markaad yani aad samaysato oo markaa ogaal aad u yeelato qodobka labaad waxa weeye inaad xirfad raadsato wax xirfad kasta oo kugu saacidaysa waxa aad jeceshay si fudud aad u gaadho si fiican aad uga dhaliso inaad markaa ku dadaashay inaad xirfadaha yeelato xirfadaha aad lahayd iyo qaar cusub oo markaa aad doonayso inaad noloshaada ku soo kordhiso ama shakhsiyadaada ku soo kordhiso waa inaad in badan urursataa oo in badan markaa aad barataa qodobka saddexaad waxay leedahay in markaa aad fursad abuurto waxay leedahay in badan waxa laga yaabaa dadku inay sugaan sidii fursado yani jira ay uga shaqeyn lahaayeen shirkad baa laga yaabaa qofku inuu taro ka soo shaqeeyo waxa laga yaabaa qofku markaa in yani fursado badan oo kala duwan oo markaa jira oo isleeyahay raadi oo markaa sidoo fursadda u suliyo waqtiga ka dayacmo laakiin wuxuu leeyahay waxay leedahay ama ay soo kordhinaysaa ama ay nagu dhiirigelinaysaa qofku inuu isku dayo inuu fursad abuuro sidii uu fursad u abuuri lahaa oo marka koobaad isku dayo qodobka labaad ama yani optionkiisa labaad noqoto haddii isagu fursadda awoodi kari waayo inuu markaa fursadaha jira oo baadho laakiin inuu fursadda isagu isku dayo inuu isagu samaysto ayaa runtii aad u muhiim ah bay leedahay qodobka afaraad ee aad u muhiimka waxay leedahay yani qofku markuu fursadiisa abuuro waxyaabaha muhiimka ee loo baahay waxa weeyaan alcamal da'u inuu shaqo joogto ah iyo hawlkarnimo yani qofku la imaado oo shaqooyinka ayaa waxyaabaha ku fiican uu si fiican uga shaqeeyo si fiicanna markaa uga hawlgalo si fiican marka uga hawlgalo ee markaa uu wax badan uu ku bixiyo waqti badan iyo juhdi badan uu ku bixiyana waxa soo baxaya midho aad u qurux badan laana wuxuu ka shaqeeyo wixii uu markaa uu jeclaa fursadii uu lahaa ayuu fursadii uu soo jeclaa ama fursad uu soo abuurtay يعني مهارات iyo xirfado ayuu samaystay ugu dambeeyna shaqo joogto ah ayuu markaa ku siyaadiyay oo buug runtii aad u qiimo badan waana buug aan kula talahaa qof walba inuu markaa akhriyo oo runtii uu dhigto waa buug aan qodobada soo qaatay ay kooban yihiin laakiin macnayaasha ay xambaarsan iyo waxyaabaha ku sii dhex jira ay runtii aad u xooggan yihiin waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad buugga akhriyo doontaan inta ku kulmano kulan kula xiga dumtum fi ra'ayati Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh